qoraabooba Yuusuf Tacaale warramay telefishinka Saab ayaa ka hadlay sanad guurada 38 ee ka soo wareegtay aasaaska ururka SNM ee dib u xoreeyay Soomaaliland waxaanu ka warbixiyay marxaladii uu ku aasaasmay ururkaasi iyo xaaladii kala duwan ee lagu jiray waqtigaasi isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxay ku beegan tahay 38 sanadood ka hor maalintii London lagaga dhawaaqay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee loo yaqaanay SNM ee hogaaminayay ama horseed ka ahaa halgankii hubaysnaa ee dib u xareynta qaran ee lagu xoreynayay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. SNM waxay soo gashay 6 shirweyne laga soo bilaabo April 1900 iyo 1980 ilaa 19 March 1990 lixda shirweyne si caadi ah ayay u dhaceen marka laga saaro shirweynihii saddexaad oo 24 July ilaa 9 August 1983 ku qabsoomay magaalada Herer oo aan isleeyahay 2 bilood ayuu habsaamay. SNM waa ururkii ugu saameynta badnaa ama xisbigii ugu saameynta badnaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed marka la eego halgankii uu soo hogaaminayay dimuqraadiyaddii uu ku hogaaminayay dokumentigii asaasiga ahaa ama qawaaniintii ama xeerarkii ama sugantidii kale u qornayd taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa ururka ugu saameynta badan leh. taasina waxay rumoobaysaa Soomaalidu waxay tiraahdaa nimbe ceesaantii ceel Kenya maalinta Soomaali ay ceel keento qaababkii xisbiyada siyaasadeed ama ururada siyaasadeed ama halgameed ay door bidayaan ay u soo dagaalameen maalintaas ayay wananka siday u kala weynaayeen ayuu shiilimaad noqonayaa. annaguna maalintaa waxaanu la iman doonaa qaabkii aan u soo halganay iyo wixii aan u soo halganay. halgan hubaysan oo dadweynuhu ahaa 3 jiidood baa laga dagaalamayay oo halbowlo u ahaa halganka hubaysnaa. jiid waa jiidii gudaha dalka gudihiisa ee dadweynuhu ku dagaalamayeen. jiida labaadna waa jiidii xadka talowgiisa ee saldhigyadii iyo qaybihii iyo aagagii ururkii SNM. qaybta saddexaadna waa laamii dibadda oo iyaguna dhowr qaab u dagaalamay qaabkii maalgelinta ama hanti ururinta ee khaliijka iyo qaabkii mudaharaadyada iyo howlgallada siyaasadeed ee dibadda. nidaamkii aanu la dagaalamaynay hubabkii ugu waaweynaa waxaa laga yaabaa inay dadku haystaan in dayuuradihii iyo BMkii iyo madaafiicdii ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee loo adeegsaday xasuuqii shacbigan. laakiin tii qaar ka waaweynaa baa jiray qaar qarsoon oo soo bixi doonaa jira. laakiin tii kii ugu weynaayo adeegsaday nidaamkaasi wuxuu ahaa inuu SNM ku shaabadeeyo inay ahayd jabhad gooni u goosada. annagana dadaalkiina saarnaa wuxuu ahaa inaanu iska difaacno shaabadda beenta ah ee uu nidaamkaasi nasaarayay. sidaa daraaddeed ayaanu af iyo adin sugantidii ama dokumentigii SNM si walba ugu qeexnay inaanaan gooni u goosad ahayn inaanaan Soomaali kala jarjarayn waanu ku qasbanayn duruuf bay ahayd. laakiin markaad xaqiiqada eegto halgankii hubaysnaa ku jirnay intii indheergaratada ahayd ee gudiyada fulinta iyo golaha dhexe iyo ku jirtay laga yaabaa inay qaarkood aaminsanaayeen Soomaali sidan ay tahay inay ahaato. laakiin tii qubanaha iyo dadweynaha SNM ka tirsanaa ee u dagaalamayay xoolaha u gurayay ee lacagta u gurayay mudaharaadada u dhigayay ee safaaradaha gelayay ee waraaqaha qaybinayay waxay aaminsanaayeen maalmaha ka mid ah in xorriyadda dib loola soo noqon doono. sidaasaanay u dhacday. qayb halganka ka mid ah bay ahayd xeel halganka ka mid ah oo ku jirtay ayay ahayd. sidaasay Somaliland ku madax bannaan tahay ay xor ku tahay ay ku qiimeynaysaa halgankii digacaga daaliyaa lagu gayoodaayay gubuxsiga mar uun bay tirsiga meel ka soo geliyay garaacideedii hadayn geedka didinteeda. Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa.